أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد webkan wax ka baranayna waa Madina Arabic. YouTube waxa weeye maaragtay loga yare one. My Facebook group waxa weeye tafsiirka quraanka. Okay, meesha ila soo xiriir kartaa. Any question maaragtay su'aasha qabto waa iga soo weydiin kartaa maaragtay. Ama casharkan maanta waxa weeye maaragtay qaybtii shanaad weli lesson saddexaad aan ku jirnaa maaragtay tadriibaad wixii dib loo ilaaliyo waa la bartaa maanta. marka maanta waxaan rabaa kelmadahan kor ku yaalo khafiif, thaqiil, xaar, maftuux, wasikhun, jamiilun. lix xaraf, lixdan xaraf kale inaad meelaha dhibcaha leh aad gelisid. waxaa qaladid waa soo bilaabi kartaa maaragtay. hataa reerkaas aad taabatid keyboard baa kusoo baxaya. Anyway, let's try اسكو دايما بس أظن كده I don't know. إسلامي جونا so let me give you example maybe tusaale aan ku sii maaragtay. albaabka oo kale, albaabu hal saddexdan lixdan saddexan ka jawaaba hal dhaafa saddexda kale aad dhamaystir. Okay, albaabu maftuuxun, albaabku waa furan yahay. alxajaru waa dhagax, adan ku dhaafaya waxay tahay. Okay, alqamar iyo alwaraq mid ka jawaab aan kaaga jawaabo insha Allah. maxaan iraahdaa alwaraqu khafiifun, waa khafiif, warqada waa khafiif. Okay, alqamaru adan ku dhaafaya. almandiil waa mandiilka tissuega sanka diifka la sayro oo kala maaragtay ama durayga ma I don't know the language different maaragtay. iyo allaban iyo caanaha labankan kaga jawaabaya. allabanu xaarun waa kuleel, caanuhu waa kulul yihiin. marka maxaan ku dhaafay saddexdan ka jawaabay, saddexdan kala ku soo hartay meesha ku buuxi saas maaragtay. yani qor shaqal ku dhawaaq insha Allah waa ku sahlanaysaa. وبالله توفيق. عشر كلمات انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.